sideed albaab ee jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhay ma jiraa buu yidhi markaasuu nabigu yidhi nacam wa arju an takuna minhum haa way jiraan rag sideed albaab ee jannadaba looga yeedhay la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakar keliya ka gali maayo sideed albaabe waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nabigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkeygana ay adeecdo sideed albaab ee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi sideed albaab ee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oo soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaanto ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega way adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi sideed albaab ee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanay la gali doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nabiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka mu'minaadka ayaa xuralaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi عائشة ويديس وعنبي قولي قبضة مؤمنة أي حور العين تكفل لي بدن بيودي وحيتر محاك كفل لي بدني وهذا حور العين وإلهي بسميه النور بالله سميه وحول النبي قولي بصلاتهن وصيامهن وطاعة أزواجهن وحيك كفل لي بتين حور العين تو قهوينك مؤمناتكو حور العين تو وحيك كفل لي بتين صونك أي صوم أيام صلاة أي تكن أيام يرجو جاي أداعيان fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay ninbaa nabiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nabigu yidhi hooyada haddana hooyada haddana hooyada haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday سيدنا عبد الله بن عمر بن يمدي لعل هذا الحديث هو مرفوع ويان عبد الله بن عمر بو يمدين مركز سوريا ابن عمر هو يدي الشيء ايان دغتيدا حاشك ku keenay inta soo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiyay carafa ayaan geeyay xaqeegi ma guday mise ma gudin wuxuu ku yiri xaqeegi kugu lahaydood guday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinka kaliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygi ma soo celin buu ka yidhi xaqiina waa leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday